السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا قدوان سو كمان شرط وكروستي سبسكرايب صار لايك ترى قبل أدي أبو ما صدت هاي أنا يلو بينا أنا إنستغرام يا تيك توك يا فيسبوك بيج أكو قناة كمان شاء أدي أبو ما سنتين بريهنا يو من مرسي قبضتها هذا ربط طبعات السوقين السوشيال ميديا غير على معني يوتيوب كمان سوقين سوا شيء أوجد شارك سوا حوالي بحياة وذكرني هاي أنا وحويا حتى لقبلها أو لقبلها هذا أساس هذا الشيء سو وكودي حبينه كودي حبين منه حنسول كذا ويديكها يعني قنعها أن أصحاب هاي waxaan ogtihiin waxa raadin negative ma wax kale inaan sameyn doono insha Allah waxaan yahay maanta hasba queen oo macna xiriirkii jaray kulleeyde ma garanayno xiriir badan bay sameysay laakiin xiriirkii ugu dambeeyay ku saacadiin ay raahdo la sameysay xiriirka waxa ku dambeeyay iyo wax banaagnaa asxaabta aad u nasantiin lagu xidhnaada waan bilaabnaa haye aan bilaabno asxaabta Queen Xabsa ayaa markii ugu horeysay muuqaal live ay ka soo gashay aaladda TikTok waxay ku shaacisay in aanu qabin sayidii dhawaan baraha bulshada sida ninka sheegayo kolay run iyo been ma kala garanno sababtaa labada qof oo hadla mooyaane run iyo beentooda ma kala garan karno markaa run iyo been haddaanan kala garanayn waxa keliya aan inagu samayn karnaa waa in aan wixii macno leh aan ka qaadano kulay saymka sheegayda wax kasta run maaha laakiin se sheegaysaa ay saaxiibtinimo ay ku sameeyaan weyn u haystay iyada iyo isaga waxaana ay sheegtay in uu ku qabay saaxiibtinimo haba yaraatee aanu ka dhaxaynin wax meher ah arrintaasi oo fajicisa ku noqotay haddaba intaanan u gudagelin barnaamijkan xiisaha leh oo dhammaystiran marka hore walaal macaan like star muuqaalka kana mid noqo suu sheegayo inay saaxiibtino kuwa noolaayeen yacni dhaqankaa inagu malihin xaqiiqa laga hadlo taasna ma dhici karto anigu kun xasba waxaan ku garanayay saddex horta mid adnaan model la yidhaahdo maryoolasha ka saaysan ogaa kuna de barankii kuna waxay odhan jirteen yarashka boy iyo wiilka iyadoo kaalay mar walba ma waxay tahay sanad walba ma nibay guursataa سنة جدود استحقف الجوست يبقى عصيبنا صعبتها ayaa markii ugu horeysay waxay muuqaal live ka soo gashay aaladda loo yaqaano TikTok halkaasi oo ay waxyaabo fara badan oo sir ah ay ku kashiftay oo ku aadan in xiriirkii jacayl ee ka dhaxeeyay iyada iyo saygeeda dhawaan ay sheegtay in uu khiyaamay kadib markii uu gabar kale ku khiyaamay waxaana وسو ليهاي تيك توك أي كهذا شيء كوسو كشيء لايف يدو كارلسا حريرك كده يعني كل ينيو دينتين ما يبان واحد دينتين أو بنايسي ما ترت واحد صاحبتين ما كل شو كان سؤال كيس لكن صاحبتين مو هذا سو نوشي يو وصاحبتين ما نعقلها يعني كوي قالوا استعماله وين Why are you running? Why are you كل كاس موجين تاس دينتنا ما بنا أنا هنتي إنسان قبض كل دينت ولا يكفي عين لكن سعرنا قبض ay sheegtay in haba yaraatee ay wada joogin saaxiibtinimada ay ka dhaxaysay guur iyo meherna u dambeeyay rashka boy waxaana ay tilmaamtay in rashka boy uu ahaa shakhsiga kaliya ay xalaasha isku guursadeen hase haatee wiilkan dhawaan ay ismeersadeen kulaniyo wiilkan soo sheegayo horta mar rumaysan karo waxa waa social media inaan rumaysto ma ilaa uu qofkii ka soo hadlo kulay live-ka waan arkay ay ka soo hashay leedahay rashka boy bay ugu dambeysay wax guura laakiin iyadoo saan isku dhadhagayaan
wax balaaguura ma jiro gabadhan wiilkaas isku dhaya waad baad arkaysaa markaas taa ma oran karna anigu kolley afkayga inaan wax ku doonna ma rabne laakiin taas hadday jirto wax xaaraan calayg annagu taasoo annagu ani ahaantayda kolley taa waan kasoo horjeedaa bulshadana sida weyn u haystay iyaga oo soo bandhigaya waxyaabo gebi ahaanba dadka qaar ay ku tilmaameen sidoo kalena ay ku farxeen in ay gebi ahaanba waqti xadirkan Queen Xabsa ay ka baxday singalnimadii ayaa hadda waxay noqonaysaa mid wax makama jiraan waxaana ay sheegtay in habeeraate wax xiriir guur ah iyo guud ahaan meher ah aanu u dhaxaynin iyada iyo saygeeda cusub ee dhowaan say hadda dee usoo wiilka sheegayo kolley annagu dama hunno laakiin suu sheegayo inaan wax xiriira ka dhaxayn marna uu sheegayo inay meherkii ay marna isguursadeen kolley niyo wax annagu aan ka sheekano ma jirto waxaan dusha ka aragin social mediaha ma rumaysan karno laakiin hadday dee kolley labada qof isa isku dhagayaan lama oran karo walaa meher bay ku joogaan kolley laakiin labada qof way isteegi karaan laakiin xasba queen hadday saan jirto sax maaha kolley hayaan sii wada gebi ahaanba ay sheegtay in uu khiyaanay halkaasina ay ku kala tegeen kadib markii fadeexado kala duwan oo ku aadan iyada iyo isagaba ay banaanka u soo baxeen waxaana muuqatay in Queen Xabsa ay uga imanaysay bulshada taageerta iyo kuwa la socda arrimaheeda jacayl iyo guud ahaan nolosheeda private-ka ah in ay ku dhaleeceynayeen in Xabsa Queen ay tahay shakhsi xanuunsanaysa oo habeeraatee aan ahayn mid laysku hadlayn kara waxaana ay yaqiinsadeen hadaladii suu sheegay maraba Xabsa Queen baa xanuunsanaysaa koleyniyo كل ارتباط أركي لابد ارتباط أركي يوم مقالسة صدوبي مر يضو لي حاجكيغا مرنا يضو لي برانك ما سميننا لكن حسب كوين يضو مملوبة معروس بيكو تهي يمكن سيد بلا بشي سو شيء وناغو أنا بشي بلا سيسو على والله باشن حتى ساسو جرتو واحد سوعنا يمتر واحد سنيو ربو يقول دهان waxyaabihii uu rashka boy ku furay taas oo si weyn baraha bulshada saacadii ugu dambeysay lagu falanqeynayay haddaba Queen Xabsa muuqaalkan live-ka ah ay soo gashay waxay ku sheegtay rashka boy waxyaabo ku furay waxyaabo badan bay naga qaldanaya marka caadi ahaanteena eego waxyaabo badan bay naga qaldan waxyaabaha naga qaldan waxaa ka mid ah laba qof oo calafkooga soo dhammaaday hadday calafkooga bartaa kusoo dhammaado dadku waxay moodaan wax kasta waxbay ka sheegaan haqiyo marka laga hadlo marka qof lama oran karo saasuu yahay macnaa waxaasaa lagu furay taa oran mayno laakiin hadday tani jirto xasba kuweynta waa degada weyn olaa ayaa sii wada waxyaabo fara badan oo ku aadan waxyaabaha nolosheeda private-ka ah iyo in waqti xadirkan wiilkii dhowaan ay wada joogeen oo khiyaamo kula kacay haddaba Queen Xabsa marxaladii kala duwanaa ee nolosheeda iyo guud ahaan khiyaano wiilkii wajoon khiyaano kula kacay kuleniyo horta noloshu waxay ku fiicanta private-ka inayna social media aan soo dhigo oo sidaas oo hebel baa guursaday heblaha guursatay baraanka baan sameynaa hadhow la kala ordo dhib bay qofka ku yeelaysaa saameyn bay ku yeelaysaa waxaan ka shakinayaa qof walba raba baraha bulshada inuu soo dhigo sawjkiisa ama sawjadiisa dhibaatadan sug dhibaatan de waa iyadoo ku dhidhegaysay soo dhigtay kadibna hadha waxay ku walaacayaan saanaa naga dhacay saanaa naga dhacay saanaa naga dhacay taas wax jiraa ma jiranayo بالنسبتين أصحابتي فيديو هكذا كنت شوفينها تذكر أستاذ سبسكرايب صار لايك ترى كقبو أهدي أدنى سنتين